Marka uu dalku leeyahay xulafo iyo sidoo kale marka uu leeyahay saaxiibo gaar ah waxaa sarreysa diblomaasiyadiisa taas oo baritaaraysa haddii uu dagaal galo haddii uu dhaqaale burbur la kulmo iyo haddii ay wax walba ku habsadaan maxaa yeelay saaxiibtinimadu waa mid aad u qaali ah oo ka koobta dalka in ay dhinacyo kala duwan laga taageero waana muhiim marka waddanka la eego saaxiibadiisa iyo xulafada diblomaasiyadeed ee uu leeyahay waxaana jira xulafooyin waaweyn oo daafaha dunida ah sida xulafada Mareykanku hogaamiye ee NATO iyo sidoo kale isbahaysi ay leeyihiin wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo dhowaantanba wada sameeyay dowladis military waxayna mowduucan si gaar ah isku dul istaagi doonaa sida dhabarka looga toogtay waddanka Faransiiska kadib markii heshiis lagaga baxay sanadii 2016 uu la galay waddanka Australia oo ay uga hoos baxeen ama ay markaasi ka bursadeen oo dhabarka kaga toogteen dalalkii xulafada ay ahaayeen waa Mareykanka iyo waddanka Ingiriiska kadib heshiis 2016 ku kacayay 36 milyan oo dollar kadib markii Australia ay doonaysay in loo sameeyo guji soosaadka badda hoosteeda mara ee xambaara gantaalaha nuclear-ka laga dhaliyo taas oo haatan noqotay mid gebi ahaanba halkaas ku baaba'day ama heshiiskaas uu noqday mid burburay kadib markii wadamada Britain iyo Ingiriiska iyo Mareykanku ay markaasi bilaabeen inay heshiis cusub la galaan waddanka Australia loona sameyn doono quwadda nuclear-ka laga dhaliyo ee gujiska badaha hoosteeda maaxa kaas oo aad waxtar ugu leh waddanka Australia maadaama ay u baahan tahay difaac aad u heer sareeya inkastoo daafaha dunidaba loolan loogu jiro dhinaca difaaca haddana waddanka Australia oo aad isku hayaan Shiinaha waxa uu haatan laga maarmaan ka dhigay inuu kordhiyo oo uu kor u qaado difaaciisa dhinac walba ay tahay haddaba heshiiska laga baxay waddanka Faransiiska waxa ku noqday dharbaaxo kulul oo ka soo gaadhay kadib markii xulafadiisu ay arrinkan ku sameeyeen waxay yiraahdeen dhabarka ay naga toogteen maxaa yeelay dhaqaalaha kaga burburay ama halkaas uu ku qasaaray ee uu doonayay inuu markii hore gujiska ugu sameeyo Australia ayaa ahayd lacag aad u qaali ah waxaa sidoo kale jirta dhibaatooyin ka soo gaadhay coronavirus oo dhaqaalaha waddankaas hoos u dhigay iyo sidoo kale kadib markii dunida islaamka dhowaantan laga mamnuucay ama markaas laga qaadacay qalabka iyo wax soo saarka gebi ahaanba waddanka Faransiiska kadib markii uu caadaystayba in uu ku aflagaadeeyo dalkiisa gudihiisa dadka islaamka iyo nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee iyo inay si badheer uga hor yimaadaan diinta islaamka haatan Macron waa mid xaaladdu ku xun tahay ayna marayso meeshii ugu darnayd dhinaca kale waddanka Ingiriiska wuxuu u sameeyay laabdajin ama markaasi salaaxid inuu u sameeyo oo uu leeyahay hoos uma dhici doono xiriirka ay wada leeyihiin wadamada Ingiriiska iyo Faransiiska arrinkaas oo ah arrin diblomaasiyadeed oo uu doonayo inuu laabta ugu qaboojiyo oo uu doonayo markaasi isagoo dhinaca kalena sheegay in ay Faransiiska looga baahan yahay inay soo dhisaan arrinkaas oo dhinacyo kala duwan laga fasiray diblomaasiyad ahaan dhinaca kalena heshiiska ay wada galeen wadamada Australia Mareykanka iyo Ingiriiska waxaa ku qacan seeray ama markaasi si weyn uga soo horjeesaday waddanka Shiinaha oo iyada uu og yahay inay waxaan oo dhaniba liddi ku yihiin waxaana sheegay inay bilaabi doonto dagaal cusub ama dagaal qabow oo adduunka ka bilaabma dhinaca kale waddanka North Korea ama South Korea ayaa bilaabay isaguna inuu markaasi uu ka falceliyo isagoo ku tilmaamay inay dhalin doonto qayb cusub oo ah tartanka dhinaca hubka iyo nuclear-ka taas oo haatan loogu sameynayo ama dalalkan saddexdan geesoodka ka kooban ay doonayaan inay nuclear ay markaasi ugu sameeyaan waddankaasi Australia ee markaa xambaara gantaalaha quwadda nuclear-ka laga dhaliyo ee markaasi badda hoosteeda maaxa ee loo yaqaan gujiska kaas oo waxtar weyn u leh Australia marka la isku soo wado duwo gebi ahaanba dhinacyadan wadamadan quwadaha caalamka waxaa jira inay si weyn u kala faa'iideysanayaan qaarkoodna ay ku qasaarayaan qaarkoodna ay raadinayaan xulafooyin iyo sidoo kale in ay hub urursi sameeyaan iyo inay horumariyaan quwadooda iyo difaacooda gaarka ah maxaa yeelay mar walba dagaal ayaa dhici kara haatan waxaba bilaabmay gebi ahaan dagaal qabow oo adduunka kaas oo ku qotama ama ka dhaxeeya wadamada Mareykanka iyo waddanka Ruushka Shiinaha oo dhinacyo kala duwan ay kala dhaxayso xilaaftanka dhinaca Shiinaha marka la eego waxaa si gaar ah loogu loolamay waqti dhexe dhinaca iyo dhaqaalaha oo uu ku sarreeyo waddanka Mareykanku laakiin qalabka electronics-ka uu soo saaro waddankaasi Shiinuhu uu aad u heer sarreeyo kaas oo gebi ahaanba dunida saameeyay dhinaca kale
quwadda militariga ayaa iyaduna noqotay loolan weyn ama khilaaftanka ugu weyn kadib markii sandareedhada hawada loo galo gantaalaha gebi ahaanba ay loolan weyn dalalkan ugu jiraan, taas oo ku tusinaysa dagaalka qabow ee bilaabmay kadib midowgii Soviyeeti burburkiisii ee 1980-meeyadii oo xilligaas ay ugu dambeysay dagaalkii qaboobaa ee adduunka. balse loolankan ama dagaalkan qabow waa mid bilaabmay qarnigan 21aad oo ay jirto tiknoolajiyad casri ah oo wax walba la isku adeegsan karo. haddii aan soo noqono qodobka ku saabsanaa waddanka Faransiiska, waxaa jira dalal kale iyaguna kaga baxay heshiisyo noocan oo kale ah oo ay ka mid tahay waddan ay jaar yihiin oo ay Switzerland oo iyaduna ka iibsanaysay raxan diyaaradaha dagaalka ah balse haatan u bedeshay waddanka Mareykanka inay ka soo gadato diyaaradahaas dagaalka. waxaa jira dhibaatooyin kale oo uu la daala dhacayo. sidoo kale waddanka Faransiiska markaad si guud ahaaneed uga fiirsato waxaad moodaa inay ku jirto aqliyadda xawayaanka oo kale. tusaale ahaan, waxyaabaha ama falalka ay sameeyaan ee ugu badan ee lidiga ku ah dunida islaamka waxaa ka mid ah in ay sameeyaan waxa loo yaqaano dadka isku jinsiga ah. waa waxyaabo aqliga daanyartu ay ku jirto kale in ay sameeyaan si ay ugu xumeeyaan keliya in ay islaamka ay ka hortagaan oo islaamka u arkaan inay yihiin argagixiso iyo cid aan la soo dhaweysan karin dadkaas islaamka ah. laakiin aqligaas xawayaanka xataa aan ku jirin ee sidaas wax u wada wuxuuna ogeyn in ay diinta islaamku tahay diin dhidabadu ay u aasan yihiin oo xagga eebbe ka imaatay. laakiin waddankaas Faransiisku isagoo ay sidaas tahay haddana xulafadu waa mid muhiima maxaa yeelay haatan waxaa la doonayaa in shir ay wada yeeshaan wadamada saddexdan dal waa Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiiska oo bisha Oktoobar ay kaga wada hadli doonaan heshiiskaas oo markaa lagu wada eegi doono dhinacyo kala duwan iyo sida ay wax walba u saameynayaan waddanka Faransiiska. lamana ogo in heshiiskii 2016 uu dib u soo bilaabmi doono, waana uu ku daayay maadaama Australia doonayso in ay aad u horumariso quwaddeeda difaaca ee ay aad ugu baahan tahay waqti xaadirkan ee Shiinaha ka soo horjeedaan. dhanka kale midowga Yurub waxa uu sanadkan ama markii uu Mareykanku ka baxay waddanka Afghanistan uu doonayaa inuu samaysto quwad militari oo u gaar ah maadaama uu 100% ku tiirsan yahay waddanka Mareykanka oo ka ilaaliyo midowgii Soviyeeti. Ruushka gebi ahaanba uu ka hor istaagan yahay waddanka Mareykanka uu difaaco, isagoo Trumpna horeyba u sheegay madaxweynihii hore Mareykanku inaan la difaaci doonin oo ay lacag bixiyaan Jarmalka iyo wadamada kale ee Yurub. dalalkan Yurub gabadha hogaamisa ayaa waxay leedahay waa xilligii la gaadhay Yurub inay isku filnaato gaar ahaan dhinaca difaaca oo aan lagu tiirsanaanin waddanka Mareykanka maxaa yeelay wax walba way isbedelayaan. dalalkuna qaarkood waxay leeyihiin loolankan dalalka u dhaxeeya ma aha wax noqoseeya, halka ay qaarna leeyihiin waa inaan saaxiibkiina gaarka taageerno ama Mareykan ha noqoto ama Shiinaha ha noqoto dhinacyo kala duwan ay u saameynayso dalalka adduunka.